بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. dhammaan kasoo qaybgalayaasha xafladan daafurka bile asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. bacda salaam, sida aan la socono maanta dalkeena wuxuu wajahayaa horumaro badan oo dhanka tiknoolajiyadda ah, waxayna u baahan tahay tiknoolajiyaddaas in loo helo dhalinyaro badan oo firfircoon oo wajahi kara mustaqbalka dunida maanta la jaanqaadayo. waxaan dhiirigelinayaa dhammaan ardayda Soomaaliyeed oo maanta loo furayo koorsadan oo muddada socon doonto 2 isbuuc ama inta ka badan inay ka faa'iideystaan muddada ay joogaan. waxaan u rajayn doonaa khibrad wanaagsan iyo firfircooni. sidoo kale maxaa la yidhaha maamulka gobolka Banaadir waxaa sharaf weyn u ah inuu arko in ay kasoo qaybgalaan daafurkan, inaan kasoo qaybgalno daafurkan mashruucan. ugu horeyn waxaan bogaadinayaa bile iyo tabaarak ICT Solution iyo Hormuud Salaam Foundation iyo dhammaan bahwadaagta ay qayb qaateen hirgelinta mashruucan. mashruucan wuxuu bogaadinayaa xilliga Soomaaliya ay ugu weyn tahay in Soomaaliya ay noqoto dad u baahan aqoon, hal abuur iyo tiknoolajiyad casri ah. maantana dunida la tartanto aqoonta tiknoolajiyadda. sidaa darteed haddii aan rabno in Soomaaliya ay horumar ay gaarto ammaano dhaqaale iyo ammaano mid maskaxdeed, waxaan u baahanaa inaan maalgelino maskaxdeena kuna abuurno dhalinyarada Soomaaliyeed hal abuur badan. Soomaaliya waxay leedahay dhalinyaro badan oo aad u firfircoon. waxaan u baahannahay waa in kartidooda iyo hal abuurkooda fursado tababaro loo helo sida hadda maanta ay u abuureen bahwadaagta bilan iyo tabaarak intaba ICT. mashruucan bile wuxuu tusaale wanaagsan u yahay ardayda u baahan in ay casriyeyso aqoontooda dhanka baraatikada si ay u wajahaan waxbarashadooda guulo badan ay kaga gaaraan. aqoontu sida aad ogtihiin waxay leedahay horumar waafi ah dhanka dunida iyo maskaxdeed, waxayna abuuri kartaa in la helo dal ku wajahan mustaqbalkiisa mid wanaagsanaada. sida hadda la socotiin tiknoolajiyadda adduunyada waxay ka tahay horumarka ugu sareyso dunida maanta aan ku noolnahay. haddii aan u baahannahay inaan wax soo saarno dhanka amnigeena, haddaan u baahannahay dhanka wax soo saarka beeraheena, haddaan u baahannahay dhanka dhaqaalaha, waxaa muhiim inoo ah inaan casriyeyno aqoonteena kuna casriyeyno xagga tiknoolajiyadda. waan ku faraxsanahay inaan idin kala soo qayb galo. waan idin hambalyeynaya. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.